السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك dhamaantiin. Maanta waxaan idin tusayaa jikadeyda madbaqa soo lama yidhaaho qof walba si uu yaqaanaa. Soomaali waa inuu qani miyaa la odhan jiray. Jikadii baan maanta maaragtay aan nadiifinayaa kor iyo hoos kabadhadaas gudaha banaanka meel kasta. Caadi ahaan markay Ramadaan soo galayso ayaan wax walba aan sii nadiifsadaa oon sii diyaarsadaa si hadhowta hawsha u badanin. Jikadu waa inay nadiif ku ahaato. Waxaan usoo duubay videogan maaragtay dhiirigelin qof walba kolley si ayuu waxiisa u basarsadaa. Anuu kolley qaabkaan u samaystaan idin soo duubayaa. Kor baan koray maaragtay waa jaritaan qaatay baan wale dhakada kore. Dhastiyaa u jeedaan waa bahalka qiiqa saara. Alaabtaas oo dhan kor iyo hoos ayaan mufka siinaya insha Allah mureel isku daawado kale. Maasha Allah. Alaabtaas waa la korgoraya insha Allah hadda is dhexyaasant u jeedaan. Kloofskii weynaa ayaan gashaday u jeedaan kor ayaan maaragtay aan ka dhaqayaa kabadhada. Saddexdii biloodba mar ayaan anigu deep cleaning aan ku sameeyaa. waxna waa nadiifin been kor oo maalin kasta taagan. waxna waa wax maaragtay alaabta dhan la kala habaynayo marba la kala bedelayo maaragtay. marka maanta hawl culus ayaa lagu jiraa saad u jeedaan. ilaahay xoogaa noo siyaado maasha Allah intaan haysan ilaahay ha siiyo. markaas bahalka waxaan soo saari doonaa filterka qiiqa nuuga meesha stoofka bahalka qiiqa saara marka wax la kariyo. waan idin tusayaa before sida uu yahay. wakaas tara alaabtii waa tan iyadoo maaragtay aftar ah oo habaysan. halkii aan baqtiyey si kaandhalada quruxdu ay u soo baxaan. walalac meel la odhan jiray. maasha Allah. sheekadu shabshab weeya maasha Allah. wararac marka xaaladdu isku dhamaatay. after ayaa taas jikadii waan dhammaystiray nadiifintii. decorationkiina markii hore kor waan ka wada dejiyey iyo decorationka badadiisa waan wada dejiyey markii hore before aan idin soo galiyay meesha. hadeer waa aftertii wakaas. saas ayaa maaragtay aan sharaxaadii ugu soo celiyey. halkaa tray baa saaran kaandhal carfisa yar. bahalkaana waxaa ku jira tuubooyinka sharaabka lagu cabo. bahalkaas waa bahalkii roodhida toasterka. sharaxaad yar oo halkaas taala. taana waxaa weeye waa meesha qorfaha iyo heelkayga aan ku shubto. kaandhalkaasna waa kaandhalkaas maaragtay maasha Allah quruxda badan. sinkigaygii oo dhagdhag laga soo siiyey. yaa baashi kitchen aid oo taabaashaas waa aad loo isticmaalaya hadday Ramadaanta. hadday kimisa noqotay hadday foolyo noqotaba hawsha waa hawl weyn. bahalkaasna waa bahalka wax maaragtay lagu qooshto waxyaabaha qaar. kii weynaa hoos buu ku jiraa oo aan waxyaabaha waaweyn aan ku shiidan jiray. firinjeerkii I hope inaad ka hesheen. fadlan suulasha maaragtay taaga commentigiina ii soo gudbiya inaad ka hesheen. saasaan ku ogaanaya la soo socodsiiya hadduu ilaahayna. halkaa xeedhaa saaran anagu xeedhaan nidhaahnaa. xeero yar oo waxaa weeye diyaar ah qofkii doonaya hadhow gabadh loo aroosayo ha isoo wac insha Allah. waad qaadan kartaan. kuwa waaweynna gudaha ku jiraan waan hayaa. marka asxaabey I hope inaad ka hesheen dhiirigelintaas maaragtay walaaladii aan ku dhiirigelinayo maaragtay insha Allah wixii faa'iido iyo wax kasta waan idin soo gudbinayaa. wixii su'aalaha wixii commentiga waa dhankiina. wixii duca ah wixii suultaag ah yaa fadlan haddii aadan channelkayga aadan subscribe aadan siinin fadlan waxaan kaa codsanayaa
inaad subscribe ka taabato si aad wax kasta aad ula socotid markaan soo geliyo insha allah. nadaafadda waxaa leeyahay waa diinta barkeeda oo nadaafaddu aad bay muhiim u tahay. gurigaagu inuu ku hagaagsan yahay ama ha ku weynaado ama ha ku yaraado, alxamdulillaah wuxuu ilaahay ku siiyaba waa meel ilaahay lagu caabudayo, waa gurigaagii inaad habaysatid oo hagaajisatid yaa wax muhiim ah. wax kasta kor lama saari karo ee counterka ma ogtahay, oo alaabo badan baa taala gudahay ku wada jiraan. kii wax lagu shiidayay ee weynaa gudaha ku jiraa, maaragtay quraarada qalinka ahee biyaha lagu diirsado hoos bay ku jirtaa. waxyaabo badan oo hoos ku jiro qarsoon baa jira oo markaan u baahanahay unaan jeclahay inaan counterka saarto. inta kale inuu saa'imti uu yahay nadiifa ayaan jeclahay. marka walaalahay khayr aan idin rajaynaa. tani waa part 1 weeyaan haddii ilaahay idmo. kani waa filterka qiiqa nuuga markaad wax karinaysid. before ayuu ku jiray videogii, haddeerna ka aftertii isagoo nadiif ah maasha allah oo dhalaalaya werwer iyo walalac. haddii aad doonaysaan inaad maaragtay aad su'aal qabtaan qaabka aan yacni haddeer filterkaas oo kale aan u nadiifiyey, runtii si fudud ayaan u nadiifiyey oo easy ah. haddaad doonaysaan waxyaabihii aan isticmaalay maaragtay waad ii soo weydiin karaysaan, waan idin soo sheegayaa. linkigaan idin soo dhigayaa haddii ilaahay idmo. su'aalo noocaas haddaad qabtaan alaabooyinkaas meelaha aan ka soo iibsaday waad soo weydiin karaysaan. idinkana waan jeclahay bal maaragtay wixii dhinaciina faa'iido ah ii soo gudbiya. anigu san horeydoon iriba 3 biloodba mar 4 biloodba mar ayaan maaragtay deep cleaning aan ku sameeyaa jikada. waliba waqtiyada maaragtay rabadaan soo galayso oo kale, maadaama oo saliido badan iyo waxyaabo badan maaragtay lagu karinayo guriga, waa in wixii hore laga nadiifiyo muf laga siiyo sooma, si carigu easy u kala noqdo. ilaan rabadaan hadhow markaa sooman tahay dee energy badan lama hayo moogti, adiga nafiya kaxa ah. marka taas waa aan jeclahay inaan u sii nadiifiyo. intaa videogan baan habeenay isu keenay maahee maalmahan oo dhanba hawshan baan ku jiran la soo gooxay walaalayaal. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen, iga ilaawina suulasha inaad taagteen haddaad ka hesheen. I hope inaad ka helaysaan, asxaabtiina aad la share garaysaan si uga faa'iidaystaan. kani waa part 1 korun baan idinka tusay, yacni haddaad doonaysaan part 2 inaan soo sameeyo sidii yacni qaabka gudaha aan u kala guray, u kala nadiifiyey, alaabta u kala habeeyey, kabadhada gudahooda. iyo haddaad doonaysaan part 2 inaan kasoo dhigo ila soo socodsiiya insha allah. videogana video dheer buu ahaa runtii, xaqiiqatan waan gaagaabiyey. anuma jeclay video 10 minutes ka badan inaan soo geliyo. waad aragteen videoda ay gaagaaban yihiin. marka aad baan maaragtay u jarjaray intii muhiimka ahayd ee dhiirigelinta ahayd baan ka soo qaatay. kolley gabar kasta way taqaanaa sida maaragtay hawsheeda ay u qabsato. alxamdulillaah ilaahay wuxuu ku siiyana ama guri weyn ha ahaado ama guri yar ha ahaado, wuxuu ahaadaba waa gurigaaga, waa inaad ku xamdidid, ku shukridid, habaysatid. maasha allah. oo idinkaas videoga wuxuu marayaa gabagabo iyo gunaanad miyaa la odhan jiray. waxaan aada u sugayaa commentigiinaan aada u sugayaa insha allah. wixii idinkuna aad ii soo faa'iideynaysaan haddii ilaahay idhaaho. marka ila soo socodsiiya. ma dhowrkii biloodba marbaad gurigaaga deep clean ku samaysaa. rabadaan mubaarak dhammaantiin. waa inoo videogan iyo videoga ku xiga.